soo maray burta dalaya mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanaynay inta damal harweyne daayuu ku dogsanay kala daran dalkanu yaa dalxiisku soo maray burta dalaya mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanaynay inta damal harweyne daayuu ku dogsanay inta doobi xor mudan iyo kaahilaya ducan dal galbeed la bariyay deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadeey wale kuguma darsado kama dudo kumana dure kuma darshaabidkay qorsheegtu waa 6 aroornimo hadda ayaanu ka jarmaadnay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu qaadnay toobiyaha jidka xiriiriye labada gobol ee Togdheer iyo Sanaag jidkan waa miradhalka mashruuc guuleystay isla markaana dhamaaday oo hadda la manaafacadsado kaasoo iska kaashadeen muwaadiniinta reer Somaliland oo dhan iyo dawladda jidkan laguma dhisin maalgashi iyo deeq ka timid dalalka shisheeye iyo hay'adaha deeqa bixiya ee waa wada qabsi shacab iyo dadweyne iskaashaday oo ay hagayso dawladda Somaliland kaasoo la hirgeliyay mashruucan ayaa ah mashaariicda ugu waaweyn ee laga fuliyay wadanka dhererka jidkan aadka u dheer ayaa qiyaas ahaan gaadhaya 400 oo kiiloomitir in ku dhow dadka deegaanadan u dhashay gobolka Sanaag markaad wareysato waxay kaaga waramayaan intii aanu jidkani jirin inay la kulmi jireen rafaad aad iyo aad u badan isla markaana inay yimaadaan magaalo madaxda Ceerigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag ay ku qaadan jirtay ku dhawaad 2 maalmood ama 48 saacadood wax ku dhow haddase arrintu sidaa way ka duwan tahay waxaana lagu gaaraa gobolka Sanaag magaalo madaxiisa Ceerigaabo in ka yar 5 saacadood oo kaliya waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo iyo mashruuc guuleystay kanan joogo oo waa meel u dhaxaysa magaalada Garaadag iyo Ceelaf Weyn ayaa u dhaxaysa degmadaas magaalada soo dhaaf fadhigaab xagga Ceelaf Weyn baan sii jeednaa hadii Ilaahay ka dhigo dhulka biyaha fadhiya waa deegaan barwaaqo aad iyo aad buu qurux badan yahay dhulku ma sha Allah xoolo way dhargeen saasi u kici kir laayahay adilaa barkaad deegaanka wax ka dheh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta maxay hayto sida u jeedaa waxaan joognaa goobtan aadka iyo aadka qurux badan ee biyo fadhiyaan ee jawi lacala waa jawi raaxada waa jawi maxay hayto naftu u baahan tahay waxaan imika soo dhaafay deegaanka la fadhigaab markaa maxay hayto ilaa 2 kiiloomitir ma soo soconay markaan oo meeshan iyo quruxeeda ay biyo soo fadhiyaan ayaan maxay hayto loo gaariga ku qabanay markaa insha Allah biin waqti baan yar wada qaadananaa soo dhawaada khiyaarta Siciiday aad iyo aadna wadi furaya channelkana ee ka hagaajiya daawadayaal ugu dambeyn waxaan soo gaarnay magaalada Ceelaf Weyn degmada Ceelaf Weyn baan soo gaarnay anagoo nabad qabna waxaan u sii dhaafi doonaa magaalada Ceerigaabo dhulkaan soo marnay wadaalkiiseen nimcada iyo bashbarkii barwaaqada ka muuqdo roobku u daay dhulkana darantii iyo dooggiiba way iskaadeen dhul banaan oo darsan baan soo marnay aad iyo aad u qurux badan insha Allah aad ugu doogsanayso halkan aan taaganahay waa Siiroogi ka qaybinayay magaalada Ceelaf Weyn magaalo aad loo qurxiyay oo maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ay aad uga muuqato loo diyaar garoobay isla markaana dhammaan gidaarada iyo guryaha calanka Somaliland lagu dhufiyay aan taaganahay wadankii qurux badan baan ku raaxaysanaa ilaa magaalada Ceelgaabo wada socon hadii Ilaahay ka dhigo bari hadii Ilaahay ka dhigo waxaan iyadana vlog aad iyo aad u qurux badan ka soo duubi doonaa karin daalo iyo daalo ayaan ka soo duubi doonaa sidoo kale magaalada Ceelgaabo iyo dad ka duubi doonaa balbaalka isha ku hayo ha dhaafina salaada casar baa leedaamay safarku noo soconaya anagu qasri baan soo tukanay magaaladii waxaan soo tukanay Garaadag sida roob gudayo fargalac ka soo yiri gowla laale iyo hawliyo gaashaamo biyo dhulkaas oo dhan heestaa ku jira vlogad ka dhex arki doontaan gaashaamo laakiin ma tegayna la socdo insha Allah kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray burta dalaya mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanaynay inta damal harweyne daayuu ku dogsanay kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray
الله الرحمن الرحيم أصحاب هذه أدبان السلام يا إيكي فلوكس قلبت waxaanu joognaa aystuxooyinka dagaareed ee magaalada Ceergaabo jawigu waa degan yahay dhulku waa barwaaqo arigu waa barqa fadhiisi asxaabta iyo ahbaabta iyo khiyaarta ku xidhan ee Fluxus waxaan leeyahay warna cala shaydan ku yaala ka macaaniyo siciid commentiga subscribe-ka like-ta iyo share-ta waxba idin yeeli maysi war ka macaaniyo baad leeyahay aad iyo aadna waa idin salaamaya gala share-ta kala daran dalkeenu ya dalxiis ku soo maray burta dalayamay iyo dagalkii lasxaano deegaankii waxaan ku sugannahay karin daalo waa jawi aad iyo aad u degan oo roob ayaa halka ka socda waxay ka taagan burta weyn ee dalxiiska loo tagay ee daalo ayaa ka taagan aad iyo aad jawigu qurux badan yahay channelka subscribe like iyo comment saar aad iyo aad baad mahadsantihiin wada dalxiiska dhulka snack dhulka marmarun bay soo noqotaa ma roob baa da'ayo markaa halkaa ama qar dheer baa yaa waa golden weli halkaa ma tagtay wale ya hee webiyaa biyo qulqulaya maaha may dadka liqaysa dadka muu liqaya dhulku waa sidaa aad arkaysaa kala daran dalkeenu ya dalxiis ku soo maray burta dalayamay iyo dagalkii lasxaano deegaankii tugdheeriyo lagama qaban karo dunyada ku dhaqanaynay inta daman harweyne daayuu ku togsanay kala daran dalkeenu ya dalxiis ku soo maray burta dalayamay iyo dagalkii lasxaano deegaankii tugdheeriyo dunyada ku dhaqanaynay inta daman harweyne daayuu ku togsanay inta doobi xor mudan iyo ka helaya ducan ضرورتي بورتو استو ساري يا ها gaarigan wadani waa kaa daawadayaal saad halkan ka arkaysaan waa badhasaabkii ama guddoomiyihii gobolka Sanaag ayaa halkan igula sugan guddoomiye soo dhawow waa dhowahay mar labaad Siciid aad baad u mahadsan tahay deegaanka leena ku sugannahay waa deegaankii daalo waad arkaysaa waxa ciiro iyo qurux iyo nimco taala ilaahay ha inoo barakeeyo ilaahay baynu baryaynaa inuu alla inoo barakeeyo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada Soomaaliland inay dalxiis halkan u yimaadaan waa deegaan xasiloon oo nabada oo qurxoon oo ay ka heli doonaan jawi ay aad u jeclaystaan ku nastaan guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan baa bilic leh gaar ahaanna degmada Ceergaabo khaasatan buurta daalo aad iyo aad baan bulshada ugu soo dhaweynaynaa Siciidna waa mahadnaqaynaa iyo asxaabtiisa ku xidhanba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi aad baad mahadsantahay guddoomiye haddaan laba su'aalood kaa weydiiyo buurta 12 bilood ee sanadka ciiradan baa ku xidhan iyo dhadadan dhirtu ma greenkan ba maya ciiradan xilliga ugu badan la 4 bilood oo jiilaalkay u badan tahay laakiin over greenka mar walba way tahay deegaankaad imika arkayso halka ciiradaad arkayso deegaana ah magaalooyin dhan baa imika halka rugay baa ku beegan ma muuqato sida aad arkayso marka deegaamada dhan ee qarsoon baa maxaan ku raahdaa deegaamada ay ciiradu imika haysato waana jarkii buurta wada arkaysaa inay soo kacayso ciiradu marka 4 bilood ee jiilaalka inta badan buu ciiradu jirtaa laakiin inta kale waa jawiga macaan ee degan ee qabowga ah dooga saacad walba way tahay off green 4 saacadood waa off green 12 bilood waa off green sanadkoo dhan waa off green thank you haddaan su'aal kale kaa weydiiyo guddoomiye dhirta iyo deegaan ahaan ma la jaraa mise dad gaar ah oo ilaaliya may waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo wasiir ka tahay Shukri Xaaji Baandare oo tacab weyn gelisay aad u ilaalisa soo dhaweysa waxaan ku raadaa dalxiisayaasha la shaqeysa sidoo kale
lama ogola in caleen la jaro ku taala dhirtan waa hantida maguurtada ah ee qaranku leeyahay way ka mid tahay aad baa loo ilaaliyaa wasaaradda deegaankuna ay ku amaanan tahay shaqaale badan baa u joogo aadan ogeyn oo haddaad dhirta iminka istiraahdo waxyeelle qolyo aadan ogeyn baa kugu soo kici doona sax marka aad iyo aad baa loo ilaaliyaa lama ogola in la taataabto aad bad mahadsantay gudoomiye aad baanu kaaga mahad celinaa wareysiga adiguna waad mahadsantahay Siciid adiga iyo asxaabtaada oo ku mahad celinaynaa welcome to Sanaag welcome to Daalo aad baad mahadsantay gudoomiye aad kala daran dalkeenu yaa dalxiis ku soo maray burta Daalo iyo dagalkii lascaano deegaankii tagdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal qarweyne daayuu ku togsanay kala daran dawadayaal magaaladan joognaa waa karin Daalo weeyaan waa afaafka hore buurta Daalo waa taakni ka muuqata roobka maanta da'aya roobaad iyo far badan baa da'aya oo cirka oo dhan waa wada darurta arkaysan jawiga aad buu qurux badan yahay waa jawi degan weeyaan buurtuna gebi ahaanba waa off green ka helaya ducaan dal galbeed la bariyay deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadee wale kuguma darsado yaal maanta waxaan ku sugannahay karin Daalo ku sugannahay waa maalintii saddexaad waa maalintii afraad baan leeyahay aan gobolka joogno wasaaradda horumarka kheyraadka biyaha ayaa waxay halkan ka dhagax dhigaysaa biyood dhulka wada arkaysaan fiigu aad buu fiican yahay halkan buurtii buurtan la yidhaahdaa waa laybuuri buurtii Daalana halkaasay kaga beegan tahay fiigana bartan baa laga dhagax dhigayaa haddii ilaahay ka dhigo iminka gaarigii maayarka magaalada Ceergaabo ayaa halkaas soo socda aad ka arkaysaan Ismaaciil Xaaji Nuur iyo baro saabkii oo wada socda ka qaybgal wanaagsan wax qabadka halkan laga qabanayo ayaa in biyihii macaanaha halkan looga soo saaro buurtan karin Daalo baldaawasho wanaagsan iyaduna vloggeena qayb ka mid weeyaan aad baan idin salaamayaa guud ahaan gobolka Sanaag waa gobol qani ah oo Ilaahay uu nimceeyay isla markaana haysta dhammaan kheyraadka kala duwan haday tahay beeraha xoolaha nool macdanta iyo kheyraadka kale alla dhulka dhigay waa dhul Ilaahay uu nimceeyay waa dhul beereed cagaftii baa la qodaya beertii baa la qodaya beeri baa la qodaya waa la shineeynaya kadib intaas soo qodaale baa la sameeyay magaalada Ceergaabo dadku wax isugu jiraan dad beerale xoolo dhaqato beerale bay isugu jiraan kawada cagafta say beeraha uga shaqeynayso intan oo dhan way qodaysaa ilaa halkaas oo dhan bay qoday daawadayaal waxaan ku suganahay dooxada dagaareed baan ku suganahay galabta halkan bay qorraxdu igu dhacday waa xilli sunlight haddaan idinku yara qabto wataa qorraxdii way dhacday iminkay dhacday halkan baan joogaa waa dooxo aad run ahaantii u qurux badan oo maasha allah ya wadadii wata gaadhigu marayo laamigii Ceergaabo ka halkan baan joogaa cida shimbiraha ayaa hadda dhuutaad way kala bedelayaan marka halkan iska yara dhageysanaya maasha allah halkan ma waqti ku yara qaadanay insha allah waa iska jiifsanba haddaan doono al jecliyay jamaal dhulka hooyo jecliyay xornimo aan ku joogo waa nabadgelyo xalaal iyo waxaad ka baqaysaa ma jirto col iyo bahal toona ka fiiqmaysid halkan marka joogto laandheero banaan digay baad والله أنا عندنا وقبقا إلهي مو يا آدم كبيق ميس يا والله صعد شنال كدي لا يكدي عندك تي دقاريو درسي عبيدو درسو قنتالا دع الله ذا كبحيو دي اللي ما يشكور يمي سمير كيو طول قاد كوبا وسلقو دعايستي تنترم 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 روحوا بس انا عيدي كما سريس waxaan ka soo salaameynaa dooxada gobolka Sanaag ee Dagaar dhammaan guud ahaan gobolka Sanaag waa nabadgelyo waxa maanta loo dabaaldegay xuskii ee dhimay waxa lagu dabaaldegay nabadgelyo ku soo dhamaatay waxaan leenahay channel-kan like wax kala saar like iyo comment iyo share unde inta oo saara halkan aad ka soo salaameynaa waa dooxada Dagaar ee ku taala degmada Ceergaabo waa meel barwaaqo ah oo qurux badan
channelka ee keenay waxaad leeyahay subscribe-ta like-ta share-ta waxaba dhac soo dhawaadna bismillahi raxmaani raxiim waxaan iska soo salaaminaa dooxada dagaar ee magaalada Ceerigaabo oo dhul barwaaqo ah waxaan leenahay channelka waa channelkiinii like-ta share-ta wixii comment-ka noogu soo qora wixii salaaminaa saaxiibayaal maanta waxaan idinka soo salaamanaa magaalada Ceerigaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag ha moogaanina subscribe-ka comment-iga iyo share-ka channelka waa mahadsantihiin waxa weeyaan culimadu ka salaamaysaa dooxooyinka dagaar oo ka mid ah degmada Ceerigaabo gobolka Sanaag waxaan kula talinaynaa inaad like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta iyo comment-ka intaba aad ugu deeqdaan channelka waxaanu idinka soo salaamaynaa magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo gaar ahaan dagaar waxaanu idinka codsanaynaa inaad share-ta iyo like-ta iyo comment-ka iyo subscribe-ta intaba aad la dhacdaan channelka aad baad u mahadsantihiin kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal harweyne daayuu ku dogsanay daawade soo dhawow maanta waxaan ku suganahay deegaanka dagaar baan ku suganahay ee degmada Ceerigaabo ayaan ku suganahay vlog aad iyo aad qurux badan baan idiin waday vlog halkiiba ka sii socdaa waa dhul barwaaqaysan oo Ilaahay u nimceeyay oo raxmaadkii ee sadarkiisaan uu fadhiyo dhulka doogii sare iyo kii hoose ayaa isgaaray xooluhuna way dulgeen aad iyo aad buu fiican yahay daawasho wanaagsan channelkana subscribe iyo like iyo comment-iga hanala dhaafina see you again daawadayaal halkan arkaysan waxa la ceelda daable waxay ku taallaa magaalada Ceerigaabo halka laga galay ku taallaa meel aad iyo aad u fiican halkan balligan dadka uu liqaya gabigiisu ah ninkaasaa beerta odanaya ها kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal harweyne daayuu ku dogsanay kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal harweyne daayuu ku dogsanay inta doobi xor mudan iyo ka helaya ducan dal galbeed la bariyay deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadeey wadarkii haweenkaad gabar yahay wax dheerto kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iminka arkaysaan waa guri maran oo reer ka guuray xeryaha ood laguma oodo xeryaha xoolaha ood laguma oodo waxaa lagu oodaa dhagaxan aad arkaysaan dhagax baa la isdul dhigdhigaa kadib marka dhagaxa la isdul dhigdhigo ayaa xoolaha halkaas lagu xareyn jiray waan ka baqayaa sidan oo kale marka guryaha looga guuro masaska gala masaska ayaa gala waa taa xeradii xooluhu waa taa halkaasna waa xaabadii xeer ku siinayeen halka aad arkaysaan waa halkii reerku wax ku karsan jiray weeyaan la socod wanaagsan waa meel deegaankeedu aad iyo aad u qurux badan yahay dee aad baan idiin salaamayaa kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iyo dagalkii lascaano deegaankii togdheeriyo dunyada ku dhaqanayna inta damal harweyne daayuu ku dogsanay kala daran dalkeenu yaa dalxiisku soo maray Portugal iyo mayd iyo dagalkii lascaano
helaya ducaan dal galbeedi la bariyey deegaankeenu waa nabad dal shisheeye iyo dibadey walle kuguma darsado kama dudo kumana dure kuma dershaabidkey inta doobi xor mudani saad ka arkaysaan waxa ku qoran Siilaanyo Road oo wadada loogu magac daray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore madaxweyne Muuse ka horeeyay Siilaanyo Road ayaa ku taala wadada Ceergaabo weeyaan wadadii waxaan ka baxnaa magaalada Ceergaabo waxaan u baxnaa magaalada Burco hadii Ilaahay ka dhigo goorsheegta imika waa 2:56 daqiiqo insha Allah nabadgelyo rajaynaa Ilaahay nagu mujiyo daawasho wanaagsan فلوق قروح بدنا عرقابة يدليت كذا قبل كسناق ودنا كسو دوبي أنت سوق قبل يا كان يكون كان الضنبوحي سلام إن شاء الله سمعت في ناس كحنان هذه بدي سلامية يا أصحاب تروح علي هاي قيمة بدنا هالكن يقحرنا شركة بالك سوى أصحاب بدنا هرو قاعد يشيلونو قاعدو هذه بدي ما سنتي